بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، إن شاء الله casharkeen caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda 9aad ee suuratu الnaxli ka mid ah. casharadii tafsiirka ahaa ay inoo socday, marka waxaan akrin doonaa awalan aayadaha aan fasiri doono in sha allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إلهي سبحانه وتعالى wuxuu yidhi ina allaha alle ya'muru wuxuu amrayaa addoomankiisu wuxuu amrayaa bilcadli garsoor buu amrayaa iyo cadaalad waalixsaani samafal buu alle subxaanahu wa tacaala amrayaa dadka loo samafalo iyo dadka in cadaalad lagu hogaamiyo cadaalad lagu kala saaro wa iitaa'i di lqurbaa ilaahay wuxuu amrayaa addoomankiisa kuwa qaraabada u saaxiibka ah xaqoodii in la siiyo qaraabada in loo wax la siiyo kuwooda weliba ma aragtay u baahan wayanhaa ilaahay wuxuu reebayaa oo addoomankiisuu ka reebayaa cani ilfaxshaa'i fal fool xun dhan oo dhan buu ilaahay ka reebayaa waalmunkar
shareecada lagu inkiray oo la nacay buu ka reebayaa. waalbagyi ilaahay wuxuu ka reebayaa dulmi iyo dadka in lagu gardaroodo la dulmiyo ayuu dadka ka reebayaa. yacidukum xaal uu yahay ilaahay miduu idin waaninayo lacallakum tadakkaruun ay likay tatadakkaruun, si aada u waansantaan marka waxaa laidinku waaninayo wey. marka aayaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dadka amrayaa makaarimu lakhlaaq, akhlaaqda wanaagsan oo dhan oo ay ka mid tahay cadaaladda, ixsaanka dadka loo ixsaan falo, qaraabada oo la hagaajiyo oo ma aragtay laga warqabo kuwooda teleefonadaa la dambeeyey baaraka allahu fiik, qaraabada in muxuu ahaa wax la taro. ilaahay wuxuu reebayaa waxa uu addoomankiisa ka reebayaa waxa foosha xun oo dhan, wax xun oo dhan oo sharciga ku xun, wax sharciga lagu inkiro oo dhan, dulmiga ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomankiisa ka reebayaa. cabdullaahi bn mascuud yacni wuxuu leeyahay hadihi ajmacu aayatin fi lqur'aan likhayrin yumtathal, aayaddan waa aayadda ugu kulmin og qur-aanka, khayr dadka la faray iyo shar laga reebay, aayadda ugu kulmin og wey. waalfaxshaa marka wayanhaa cani ilfaxshaa, faxshahu waxaa laga wadaa kullu maa tanaaha qubxuhu, wixii foolxumadiisii yacni meel xun ay gaartay, wax aada u fool xun oo dhan, sida zinada iyo gaalnimada. munkarna kullu maa tunkiruhu lfitra, fitradu waxa ay inkirayso oo dhan ayaa munkar la yidhaahdaa. waalbagyi, bagyigu waxaa la yidhahdaa huwa dulm, waa dulmiga oo ma aragtay iyo tajaawuzu lxaq, saas waxaas oo dhan. marka ilaahay wuxuu yihi ina allaha ilaahay ya'muru wuxuu amrayaa oo addoomankiisa amrayaa oo laga raba addoomankii inay la yimaadaan bilcadli, cadaalad baa laga rabaa. yani ant yani dadka markaad xukumaysaan yani an taxkumuu bilcadl. ina allaha ya'murukum fi suurati nisa ilahi subxana wa tacaala waa kii yihi maaragtay yani maaragtay an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha waida xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl. marka dadka wax u kala garsooreysaan, dadka aada kala saaraysaan, cadaalad inaad ku xukuntaan. owlaadaada xataa aada dhashay inaad u cadaalad fasho, dadka adiga mas-uulka ka tahay inaad u cadaalo fasho. cadligaas ayuu koonkan ku dhisan yahay, ilaahayna addoomankiisu amrayaa. marka haddii cadaalad la helo, ilaahay ummadda waa u gargaarayaa. xataa cadli iyo garsoor ummad gaalo ah baa laga yaabaa in loogu gargaaro adduunkan. kuwo iimaan sheeganayana dulmi iyo gardarro in lagu baabi'iyo lagu halaago. marka dulmigu waa shay aan fiicneyn, dadka xaqooda la duudsiyo, dadka la dhibo, waxay cadaalad xaq u lahaayeen oo laga qaado. marka yani dadka muslimiinta iyo ahlu iimaanka waxaa leeyahy arrintaasi haska daayeen, mana aha qof iimaan le arrintaas mid ay ka suurowdo. ina allaha ya'muru bilcadli, cadaalad buu alla amraya. walixsaan, samafal buu ilaahay subxaanahu wa tacaala amraya. alixsaanu ilaa jamiici alkhalq, dadkao dhan in loo ixsaan falo, kan baahan in la qoodiyo, kan xanuunsan in la booqdo, kan maalan talada u baahan in lala taliyo, dadka in ixsaan loo falo ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala amraya. wa iitaa'i di lqurba, qaraabad maaragtay midka u saaxiiba in wax la siiyo oo wax loo yani la gacan qabto, ay muwaasaatu laqriba. ma aragtay waxaana loogu gaar yeelay halkan qaraabada ihtimaamka ay leeyihiin darteed. qaraabo haddana dhiban oo yani u baahan gacan qabasho in laga warqabo. wayanhaa can ilfaxshaa, ilaahay wuxuu reebayaa faxsho, fal fool xun oo dhan, sida zine iyo gaalnimo iyo wixii lamid ah. waalmunkar, wax shareecada ama fitrada fiican ay nacayso oo dhan ayaa ilaahay reebayaa. yacni wixii aan wanaagsanayn oo dhan oo diintana ku xun ayuu ilaahay reebayaa. waalbagyi, dulmiga iyo dadka xadgudubka lagu xadgudbo ayuu alla reebayaa. yacidukum xaal uu yahay ilaahay mid idin wacdinayo oo inaad sidaa yeeshaan oo cadaaladda iyo ixsaanka
iyo aad ku dadaashaan oo aad iska ilaalisaan fuxshiga iyo munkarka iyo baqiga ayuu idinku waaninayaa lacallakum waxaad mudantihiin haddaba tadakkaruun ay tattaciduun inaad waansantaan oo talada ilaahay subxaana wa tacaala aada raacdaan ayaad mudantihiin oo haddaad raacdaan aada ku liibantaan saasoo kale sidaasoo kale ayaa markaas la rabaa wey. marka yacni ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wa awfuu bicahdi illaahi idaa caahadtum walaa tanqudu aymaana bacda tawkiidiha waqad jacaltum allaha calaykum kafiila. waxyaabihii wan wanaagsana oo nala amrayo waxaa ka mid a ballanka in la ilaaliyo, dhaarta in la ilaaliyo, yacni muxuu ahaa in wixii heshiis lagu yahay laisku og yahay in la ilaaliyo. alla wuxuu yihi wa awfuu oofiya mu'miniinay bicahdi illaahi ilaahay ballankii oofiya idaa caahadtum markaad ballan gashaan. cuhuudda yacni aada ballanka ku gasheen oofiya, yacni waxaad rasuulka ballan kula gasheen ama dadka ballan aada kula gasheen oofiya oo sidooda u yeela. cidda haddaad wax ku heshisaan yeela oo ballankii ha ka bixina. ballan laga baxo oo intii ballan la galo yacni lagu ballan furo waa akhlaaqda qofka mu'minka ma aha. munaafiqa ayaa akhlaaqiyaadkiisu sidaas ay yihiin. idaa xadatha kadab wa idaa wacada akhlaf wa idaa tumina khaan wa idaa khaasama fajar, siduu nabiga calayh isalaatu wasalaam calaamadaha munaafiq markuu sheegayay. markuu hadlaayo waa been buu sheegaa, markuu ballan galo ballankuu buriyaa, markuu doodayo waa faajirnimo fala, waa ka haddii la aamino waa khiyaana. amaa mu'minka waxaa lagu yaqaanaa inay ballankii ilaahay subxaanahu wa tacaala ay oofiyaan. ma aragtay yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud, yani cuquudda iyo ballamada aada galaysaan oofiya oo guta oo dhammaystira. wa awfuu bicahdi illaah ilaahay cahdigiisa oofiya, yacni cahdiga ilaahay subxaanahu wa tacaala alladii caahadtum calayha alrasuul, rasuulka aada kula ballanteen inaad ilaahay rumaysaan ood ilaahay u hoggaansantaan oo amarku idin amray fulisaan. waa cahdigii ilaahay subxaana wa tacaala. sidoo kale tan aad dadka la gashaanna oofiya. walaa tanqudu laymaana dhaaraha ha burinina bacda tawkiidiha dhaartii marka la adkeeyey dabadeed, yacni marka la adkeeyey dabadeed. walaa tanquduu aymaana albeycati bacda tawhiiqiha bidikri illahi tacaala, markaad dhaarateen shay aad ku dhaarateen oo aada shay sidaasaan yeelaynaa ilaahay magaciisana aada marteen, dhaartaasi ha burinina. waxaad ku dhaarateen fuliya wey. waxfaduu aymaanakum dhaartiina ilaaliya. walaa tanqudu laymaana dhaarihii yani ha burinina. aymaana dhaarihiina ha burinina bacda tawkiidihaa ay bacda tawhiiqihaa markii la adkeeyey, yani bidikri illaahi ilaahay magaciisa xuskiisa lagu adkeeyey. shaygii ilaahay magaciisa loogu dhaartay oo aad ku ballanteen ha burinina. waqad jacaltum walxaal qad jacaltum aada yeesheen allaha ilaahay calaykum korkiina kafiilan mid markhaati ah. ilaahay baa sidaa nala og inaan sidaasaan ku ballannay ilaahay magaciisii ood ilaahayna aada markhaati uga dhigteen, wakiil uga dhigteen. waqad jacaltum allaha walxaal qad jacaltum aada yeesheen waqad jacaltum waqad jacaltum allaha calaykum kafiila walxaal qad jacaltum aada yeesheen allaha alle calaykum korkiina kafiilan xaal uu yahay mid shahiida. ma aragtay jacaltum allaha shaahidan waraqiiban calaa tilka albeyca, idinkoo beycadaasi ilaahay korkii ilaahay uga yeelay markhaati iyo mid raqiiba. ina allaha alle yaclamu alle waa og yahay maa waxa aada tafcaluuna aada samaynaysaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa og yahay. ilaahay waxaad samaynaysaan ay caliimun biafcaalikum
وسيجازيكم عليها وأنا إذن كجازين ياوي مرك واحد داد بلن كي فرطان إلهي وأوجيهاي إلهي وأنا إذن كجازين يا بل مدي إنها بورينينا وبلن كاد إلهي مجعي كوكشان إلى ليوي وقد جعلتم الله والحد قد جعلتم الله إلهي أديشان عليكم يعني كركين وكفيلا متمر خاتي إذن كوه إن الله إلهي يعلم وأوجيه ما تفعلون واحد سمين إنسان إلهي وأوجيه وأنا إذن كأبار مرينيا ولا تكونوا هنقونين الددو كالتي نعستي وكالي نقضت بوريسي غزلها حرقيرة من بعد قوة أتكين أما يعني حوق دبدي أما أتكين دبدي دبدت أنكاثا حالة تايمد يعني فرفريس يعني بربريسي وحي سميسوي مرك ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ومهما لغو مهماها أو ليرادو لغو شبه واحد جرتي هويني أو ما عرفت أن يعني أنا عقلي بدنين والصبحي أنت بلاوضه إني محوها يعني أي صهده وحرق أي سكوحر حرته والصبحي إلا يقلبتي مركي أي ما عرفتي حاجة أي قلبتي مركي لقاري هذا فرفوري جرتي وحي صبحي كسو دا شيء وما عرفتي حرق أي سوها جاجسي أي صدف عنوها جاجسي سوحر حرتي قلبتي مركي لقاري هذا فريتكو بالله بيثا صبح والبنا مركا معناه ذو واحد تهي قف إسدالنا هي وحو كدالين عن أقونين يعني وداليا وحو كداليا ما يقانو بل سدال كيسوا خسارة أو كو خسارة يو نبكا ومرايو مركا وين إذاس وعليه هاي سدا سدالنا يسي سدا سكر عن أقوننا معناها وحوي يعني مفسرين توحيد إن كان بمكة امرأة حمقاء مكة وحجوج جريها ويني عقل قابنت أو تغزل غزلا يعني حركح يعني هجاجين جرتي أم سكوح الحر جرتي ثم تنقضه حتى نفور جرتي وكان الناس يقولون ضدكو حيكو رنجلن ما أحمق هذه ورتن محاك عقل قابن ما أنتو لو حيكو داشي أي حدنا ما أركتي مركا مثال كان وحا تصالحا مركا لوغو مهما هيا قف كستو بلن كيسي بوريا oo wixii ballanka ilaahay uu la galay ama dadku uu la galay buriya ayaa lagu shabahay wala takunu hanqonina kallati tiyo kale naqadat burisay ghazlaha yani muxuaha yani xarigeedii burisay min bacdi quwatin yani quwad dabadeed awood dabadeed ma aragtay xoog ay isticmaashay iyo shaqo ay qabatay dabadeed أنكاثا بربرين أي يعني فرفرد أي فرفرتين تتخذون حال آدية ليسان أيمانكم دارهن إذنكو كي يلاي دارت دارتين دخلا أي فسادا بينكم لحظيني آدمارتي تتخذون أيمانكم إذنكو يلاي دارهن دخلا أي خديعة ومكرا يعني لقر إيو ما عرفتي إيه خيانة إذنكو دارت ودارنا يوي مثلا تتخذون إذنكو يلاي أما تتخذون إذنكو سميسنا أيمانكم دارهن دخلا يعني لقر كسميسنا بينكم إذنك لحظين أتذكريسان يعني وسوق دارنا يسان وحسن يلينا مركا قفكي دارتي واسكو خيانة يسان مركا يعني دارت سلاسي عيالنا oo inaad idinku isku khiyaantaan oo isu dhaarataan oo markaas aad ku khiyaantaan qofkii aad u dhaarateen hayeelina taas marka waxay tahay idin tahay khasaaro tattakhiduuna idinku yeelanay aymaanakum daarihiina dakhalan ay khadiicatan wa makran dhagar iyo khiyaamo oo baynakum idinka dhaxdiina aad isku khiyaanaysaan an takuuna inay ahaato darteed ummatun hiya iyadu arbaa mid ka badan من أمة كلمت كبرا أودد الطارتين الجبسان معناه ذو حلقة وضع لأجل أن تكون أمة أكثر عددا وأوفر مالا من غيرها قال مجاهد كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم أعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك وحيث من جرى عربته
qolay waxay la galayaan gaashaanbuur way isdhaarsanayaan ballan bay la galayaan inay wada joogaan inay markaasa waxay arkayaan qolo kaloo ka xoog badan ayay arkayaan qoladii ka xoog badneed bay markaasi kuwii hore intay ballankoodii buriyaan bay leeyihiin idinkan gaashaanbuur ina la galaynaa marka dhaartii in la buriyo inaad aragteen kuwii aada la gasheen baa gaashaanbuurta kuwa ka xoog badan darteed sidaa ha yeelina wey tattakhiduuna idinkoo yeelaya aymaanakum dhaarihiina dakhalan khiyaano ama maaragtay makri yani baynakum idinka dhexdiina aad isdhakraysaan lian takuuna ummatun inay ummadi ahaatay darteedna khiyaano u yeelaya ummatu hiya iyada arbaa mid ka badan min ummatin ummad kale oo markaas ummaddii aad la gasheen markii hore tu ka badan inaad la gashaan darteed u jebinayo ballankii inamaa in kale ma ahe yabluukum allahu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa idin imtixaanayaa bihi yani inamaa yabluukum allahu bima amarakum bihi min alwafa waxa uu ilaahay wuxuu idinku amrayaa inaad dhaartiini aada oofisaan oo cahdiga yani maarata min alwafaai bilcahdi liyandura almutiica min alcaasi inamaa yabluukum allah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idinku imtixaanayaa ilaahay baa idin imtixaanaya bihi dhaarta oofinteedii baa laidinku imtixaanaya bal waxaa la fiirinayaa inaad ballamadii aada gasheen iyo yani cuhuudaad samayseen inaad oofinaysaan baa ilaahay idin imtixaanaya si uu ilaahay u kala saaro kan runta ka sheegaya ilaahay daacadiisa iyo midka caasiga ah ee ballan burintu ay la fududdahay walayubayinanna ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu caddaynaya lakum idinka yowma alqiyaamati qiyaamo maalinkeed maa shay buu idin caddaynaya kuntum aad ahaydeen fiihi isaguba takhtalifuuna kuwa isku khilaafsan aad ahaydeenna ilaahay waa idin caddaynayaa si marka qof walbaba looga jaaziyo camalkiisa khayr iyo sharba walayubayinanna ilaahay wuu caddaynaya lakum idinka yowma alqiyaamati qiyaamo maalinteeda maa shaygii kuntum aad ahaydeen fiihi dhexdiisa takhtalifuuna kuwii aada isku khilaafi jirteen ilaahay waa idin caddaynayaa haddii la caddeeyo marka ninkii qofkii wanaag samayn jiray jannada ayaa la geynayaa kii xumi samayn jirayna naarta ayaa alle subxaana wa tacaala geenaya wey walayubayinanna wallahi ilaahay waa caddaynaya laamta muwadaa lilqasam baa la yihahdaa wallahi ilaahay waa caddaynaya idinka lakum idinka yowma alqiyaamati maa shaygii kuntum aad ahaydeen takhtalifuuna fiihi dhacdiisa kuwa isku khilaafa oo qofkii saxsanaana ilaahay wuu caddaynayaa kii khaldanaana ilaahay wuu caddaynayaa kii saxsanaa jannaduu geynaya kii kalena naartuu geynaya wey walow shaaa allahu ilaahay hadduu dooni lahaa lajacalakum wuxuu idinka yeeli lahaa ummatan ummad waaxidatan oo keliya dhammaantiinni hal diin baa aada wadageli lahayden kulligiin muslimiin baad noqon lahayden hadda alla rabo laakiin ilaahay mashii'adiisii yani rabidiisi sidaas ma noqon walow shaaa allahu ilaahay hadduu u doono lajacalakum wuxuu idinka yeeli lahaa ummatan ummad waaxidatan oo keliya oo aan iskhilaafaynin oo aan ku kala tegaynin diinta ay rumaysan yihiin walaakin lagu noqoyay yudilu ilaahay waa baadiyeeyaa man yashaau qofkuu doono u baadiyeeyaa wayahdi alle waa hanuuniyaa man yashaau qofkuu doonana waa hanuuniyaa yani ilaahay qofkuu doono u baadiyeeyaa bicadlihi wayahdi man yashaau biraxmatihi qofkuu doonana ilaahay naxariistiisii buu ku hanuuniyaa walatus'alunna wallahi waa laydin weydiin doonaa oo laydin weydiin doonaa dadow camaa waxaad kuntum aad tihiin waxaad ahaydeen tacmaluuna kuwa camal fala waxaad ahaydeen waxaad samayn jirteen adduunka waa laydin weydiin doonaa dhaqankiini adduunka iyo sidaad ku joogteen iyo waxaad samayn jirteen haddaad tukan jirteen haddaad cibaadaysan jirteen haddaad been sheegi jirteen haddaad ballamada burin jirteen haddaad ummadda dhibi jirteen haddaad wax isdaba marin jirteen kulligood waa acmaal wey acmaashaas adduunka aada joogteen dhammaanteed waa laydin weydiin doonaa waana laydinka abaalmarin doonaa wey wax markaasi yacni fakan doona ma leh waxna fatiil iyo qitmiir wax la egna allaha ka dhigee maarta waa laydin weydiin doonaa faman yacmal mithqaala daratin khayran yarah waman yacmal mithqaala daratin sharan yarah walaa tattakhiduu aymaanakum dakhalan baynakum ilahay wuxuu yihi walaa tattakhiduu ha yeelanina ha samaysanina aymaanakum dhaarihiina ha ka samaysanina dakhalan khiyaano oo baynakum idinka dhexdiina ahaatay aada isku khiyaanaysaan ha ka samaysanina yacni si aad xoogaa adduunya aad u kala heshaan
qofku markuu khiyaameeyo wax ama dhaarto yani intuu ku dhaarto yani lacag ama uu ku qaato iyo wixii lamid a sidaa ha samaynina oo haddaad samaysaan maxaa dhacay fatazilla ay simbiriiraxdo qadamun gumadi ay simbiriiraxato yani ama cag ay simbiriiraxato bacda hubuutiha sugnaanteeda dabadeed ay simbiriiraxato macnaha waxay tahay ay fatazilla aqdaamukum can ariiqi listiqaama cagtiinii ay ka simbiriiraxato ay ka leexato wadadii toosneed cagta idin saarneed intaad ka simbiriiraxataan aad ka leexataan maxaa yeelay khiyaamadiina iyo dhagarta aad wadaan darteed waxay keenaysaa marka inaad simbiriiraxataan oo xaqii aad yani ka leexataan oo aad baatil ku dhacdaan ibnu kathiir wuxuu yidhi hada mathalun liman kana cala alistiqaama faxaada canha kan waa tusaale loogu loogu mahmaahayo qofkii toosnaan jiray oo toosnaanta ka leexday qof diinta ku dhaqmi jiray oo diin xumi u banbaxay tukan jiray salaadii ka tegay runlow ahaa beenlow noqday yani qof wanaag lagu ogaa oo wanaaggii ka leexday ayaa aayaddu tilmaamaysa fatazilla qadamun bacda hubuutiha oo markaas haddaad leexataan yani fatazilla qadamun bacda hubuutiha wataduuqu suu-a yani haddana aada dhadhamisaan ma aragtay ciqaab aada dhadhamisaan bimaa sadadtum ay lisadikum jeedintiina aada dadka ka jeediseen can sabiili illaahi ilaahay wadadiisa aada ka jeediseenna aada cadaab ku dhadhamisaan marka ilaahay wuxuu leeyahay u fiirsada walaaliya aayadan walaa tattakhiduu aymaanakum dhaarihiina ha ka yeelina dakhalan yacni mid khiyaamo ah oo isku khiyaamaysaan baynakum idinka dhexdiina ha ka yeelina makran wakhadiicatan yani tagruuna biha annaas aada dadka ku khiyaameynaysaan ha yeelina haddaad saa samaysaan fatazilla markaasi ay simbiriiraxato qadamun cag ama gumad bacda hubuutiha sugnaanteedii wadadii toosneed ay ku sugneed ay ka leexato oo markaasi yani markaad leexataan fayasudda bisababihi can adukhuuli fi lislaam dadkii islaamka soo geli lahaana markaasi sababtaasi dadka beenta sheegay dadka ballanka ka baxay sababtood ay diinta usoo geli waayaan mararka qaarkood dadka muslimiinta ah ayagaa waxay ka hor joogaan dad kaloo soo islaami lahaa inay islaamka soo galaan say uga hor joogaan akhlaaqdoodii oo ka duwan waxa qur-aanka sheegayo ama sunnada ay sheegayso ama diintu ayna farayso taas marka waxay keenaysaa dadkii soo geli lahaa diintu inay arkaan akhlaaq aada u foolxun dad been badan dad ballanka ka baxa dad khiyaamo wada dad ma aragtay oo hadday doonaanna calaamad diin ay ka muuqato arrintaas waa khatar wey ma garatay waxay keenaysaa marka wataduuqu suu-a aa markaa dhadhamisaan ciqaab bimaa sadadtum ay lisadikum annaasa can sabiili illah dadkii aad ka jeediseen waddada alle yacni diintii aad ka jeediseen aada ku dhadhamisaan cadaab yani muxuu ahaa ee diinta soo geli lahaa ballankii aada buriseen aawadeed walakum waxaad leedihiin cadaabun cadaab baad leedihiin cadaabkaasoo cadiimun weyn baad leedihiin buu yihi alla subxana wa tacaala walakum fi laakhirati aakhiro waxaad leedihiin cadaabun cadaab kabiirun weyn oo fii naari jahannama laydinku cadaabo walaa tashtaruu ilaahay wuxuu yihi ha iibsanina bicahdi illaahi ilaahay yani ballankii hamanan lacag ha ku iibsanina qaliilan oo yar yacni cahdiga ilaahay iyo cahdiga rasuulka ha ku iibsanina xoogaa adduunye ah yacni macnaheedu taas ma aha haddii wax badan lagu siiyo inaad iibsato ood ku bedelato macnaheedu maxay tahay diintaadii ha ku gadanin adduunye wey dad badan maanta diintoodii adduunyay ku gateen adduunyay ka doorteen adduunyay ka jeclaadeen aakhiradoodii adduunyay dhaafsiisteen yacni salaadii bay ka tageen runtii bay ka tageen been bay sheegaan xoogaa doolaraada inay helaan yacni muxuu ahaa ballankay furaan waa ka-annahum inay iloobeen aakhiradoodii diintoodii wixii la amrayay marka xoogaagan yarka ee xutaamu dunya qoryaha adduunka ee dhammaanaya aakhiradiina ha ku bedelanina diintiina ha ku bedelanina ballankii ilaahay idinla galay oo inaad toosnaataan oo tawxiidka ku toosnootaan oo diinta ku toosnootaan oo amarka ilaahay iyo amarka rasuul ku toosnootaan ha ku bedelanina walaa tashtaruu bicahdi illah ilaahay ballankii ha ku iibsanina oo ha ku bedelanina
ثمنا لعق قليلا أو ير الدنيا نبه دين لقصي ووحير وحقيم أي لا مجرته إنما عند الله إلهي أكثي إنما الذي ماذا سي يعني اسم موصول بمعنى الذي وين إنما عند الله أي إنما الذي متك عند الله إلهي أكتي أهادي هو إسقى خير بدن لكم إذن خير بدن إنما عند الله إلهي وحليها إنما الذي متك عند الله إلهي أكتي أهادي هو إسقى خير بدن لكم إذن خير بدن بوير الله سبحانه وتعالى إن كنتم هديئاتين تعلمون كوا سدا قرناي يعني إلهي وحو إذن دربي أجري ثوابا أيا إذن كخير بدن الدنيا دلال كذا إيه وحيابها إذن هريالا وحاس إذن كخير بدن يعني الدنيا داس إلهي سبحانه وتعالى وحو إذن دياريي أيا مارتي كخير بدن وين إنما عند الله إنما الذي متك عند الله إلهي أكتي هذه هو إسقى كخير بدن لكم إذن خير بدن إن كنتم هديئاتين تعلمون كوا سلاسي أكداتهم وين ما عندكم دادو وح أكتينا هذه ينفدو ودمانيا وح أكتينا ودمانيا مالكي نواتغيا قريه نوي بابا أيان يعني محوها بيريه نوي بابا أيان وح أتهيستان ودن إذن كلفتينا دمانيا بابا أي وما أعرف إلهي بعد دب إذن سوصاري دون ما عندكم أيها الناس دادو وح أكتينا يعني ينفدو أي فان زائل متجي بابا أيوي وما عند الله إلهي أكتي وح هذينا باق ومد باقي وهو عن ضمانين أو جوبتاوي لا انقطاع له ولا نفاد فآثروا ما يبقى على ما يفنى وح عن ضمانين كدورته وح بابا أي معناه المعيتاي يعني الدنيا ذو هيسسيننا آخر وعمل فلا آخر الجنة ما ضماته أو ثوابك إلهي ما ضماته أدون كان قفكي حوله حوليس وي بابا أيان حد قفكي عافمات قبل حنون بقى قدام بي قفكي نول جيري بقى قدام بيس يعني وح سوى أدون كان بابا قدام بيا مركا إلهي وح أكتي سأهذي وجنة وقلت لك ليدتك وناكسر أي كاسي باقي أو دائم ونمان وي سيدا درتت وح باقي قال راسد أو حكو مشغولين وحن بابا أي ما أرتي الدنيا دينا يعني هكو مشغولين وآخر دينها اللوبنا إلهي نحسوستا ووحل لدين أبو ريقرتا وعمل فلا آخرة ولا نجزينا والله إن أبال مرينين الذين كوا صبروا صبري أجرهم أجر قودنا كوا أبال مرينين بأحسن ما شيء كان أقوى ناكسنا كوا أبال مرينين كانوا أي أهايين يعملون كوا عمل فلا إلهي وحليهي ذاتك الصبري يعني وحن كوا أبال مرينين جزاها متك وقفي عنه وعلى الأعماش بني آدم كسميان واسدح نوع واجب إيا مندوب إيا مباح أعماش وناكسن أي تدكو مثلا سميان واجب شيء واجب أصير صلاة صومكي حجكي زكدي شيء مندوبة وما يعمحوها ما عرفت مندوبة وسنة سيد صلاة السنة صومك السنة إيا وحي اللمدة إيا شيء اسكم مباح واسقو بنان oo markaasi yani haddaad samaysan ajir aan lagaa siinaynin haddii aad ka tagtin aan dembi lagu qoraynin waajibkuna waxa wixii haddii aad la timaadana ajri lagaa siinayo haddaad ka tagtidna lagugu ciqaabay manduubkuna waa waxa markaad la timaadana ajri badan lagaa siinayo haddaad ka tagtidna aan dembi lagu qoraynin mubaaxuna waa midka aan waxna lagu qoraynin yani haddaad ka tagto haddaad samaysan aan waxba lagu qoraynin marka acmaashii saddexda ahayd كوا يعني في عن واجب كي مندوبك وان كأبال مرينينا أي الله سبحانه وتعالى أوليه ولا نجزين الذين صبروا كوي صبروا وحن كأبال مرينينا أجرهم أجر قود بأحسن ما كان متك وناكسن كانوا أي آيين يعملون كوا عمل فلا أيام كأبال مرين دون نابو إلهي سبحانه وتعالى ما عرفتي سيدا إلهي سبحانه وتعالى لمن عمل صالحا من قفك عمل عمل فلا صالحا أي عملا صالحا صالحا هذا سوى صفة يعني موصوف كده وقوية من عمل قفك عمل فلا عملا عمل كاسو صالحا وناكسا من ذكر أم اللبا أو أنثى أم ندقة وهو والحال هو كاس عمل كفلينا
mu'minun uu mu'min yahay ilaahay rumaysan yahay falanuxyiyannahu wallaahi inaan noolaynayno xayaatan nolol tayibatan oo wanaagsan walanajziyannahum waanu abaalmarinaynaa ajrahum ajrigooda biaxsani maa kaanuu wixii ay ahaayeen yani ay kuwa camal fala midka ugu wanaagsan biaxsani ma midkan ugu wanaagsan kaanuu ay ahaayeen yacmaluun kuwa camal fala ayaan ku abaalmarin doonaa buu ilahi subxana wa tacaala. ilahay wuxuu noo tilmaamayaa qofka camalka wanaagsan sameeya. marka camalka wanaagsan maxay tahay yani macnihiisu ama qeexidiisu maxay tahay? alcamalu saalix waxaa la yihahdaa walaalayaal camal walba oo saddex shardi laga helay, camal walba oo saddex shardi laga helay ayaa camal saalixa la yihahdaa. waxa weeye camal ilaahay iyo rasuulkiisi amreen inuu yahay camalkaasi oo wax diinta lagu sheegay oo nala yidhi sameeya, kaas waa mid yani diinta asal ku leh. tan labaad in camalkaasi ilaahay dartii loola jeedo oo markaad tukanayso waajibka ilaahay ku saaray inaad gudato, oo markaa khayrka dadka barayso waajib ilaahay ku saaray inaad maaragtay gudanayso, oo camalka aada la imaanayso ilaahay dartii aad ula jeedo. marka waxaan idhi inay diinta asal uu ku leeyahay camalka iyo in ilaahay dartii loola jeedo labo, iyo qofka la imaanaya inuu yahay qof mu'mina oo ilaahay rumaysan oo tawxiidkiisu saxsan yahay. wa ilaa hadduu qofku gaal yahay oo camalka uu samaynayna mid ilaahay iyo rasuulkiisa amreen uu yahay, haddana gaalkaasi ayba ka dhab tahayba waxbuu sadaqaysanaya, dad buu waxtaraya, ilaahay kugu yani ha ka abaalmariya buu leeyahay, camalkaasi ilaahay ka abaalmarin maayo, janno loogu abaalmarin maayo. waa suuragal in adduunkan yani xoogaa cumriga loogu dheereeyo oo dhibaato ku dhici lahayd looga faydo, laakiin kan gaalka camalkaasi uu la imaanayo ee wanaagsan yani ku heli maayo, janno ku heli maayo. laakiin qofka mu'minka ee camalka saalixa la yimaada oo saddexdaa shardi laga helay, waxa weeye adduunkana ilaahay wuxuu leeyahay nolol wanaagsan baanu ku noolaynaynaa buu yidhi, nolol wanaagsan ayaan ku noolaynaynaa. falanuxyiyannahu xayaatan tayiba, waxaa la yidhi xayaata tayiba waxa weeye bilqanaacati waarisqi alxalaal, qofka qalbigiis inuu nog yahay. nolosha wanaagsan macnaheedu maaha inuu noqdo qof maalqabeena oo guryo waaweyn leh oo baabuur waaweyn leh oo lacag badan leh, ee waxa weeye qanaaco inuu qabo, qalbigiisa xasiloo yahay, faraxsan yahay, oo wixiisa xalaal ay u yihiin. xalaal buu quudanayaa, waa ku faraxsan yahay, awlaadiisuu korsadaa, waa cibaadaystaa, isagaa ka nolol fiican midka maalqabeenka ee yani kaniiniyada ku seexda oo walwalka hayo oo xoolaha see u kala celisaa leh, haddana xisaabteedana ay u dheer tahay. nolol wanaagsan baanu ku noolaynaynaa buu ilahi subxana wa tacaala. camalka saalixana waa la waafajinaya samayntiisa. marka laa tatiibu ljannata liaxadin ila fi ljannati liannaha xayaatun bilaa mowt, yani noloshuna waxa weeye ma aragtay ma wanaagsanaato ilaa janno mooyaane. aakhire markii la gaarana jannaa la geeyaa, jannaduna waa meesha ay noloshu ku wanaagsanaato. walanajziyannahum ajrahum biaxsani maa kaanuu yacmaluun, ma aragtay camalkoodi wanaagsan kii ugu wanaagsan baanu ka abaalmarinaynaa buli ilahi subxana wa tacaala. faidaa qara'ta alqur'aana, faidaa qara'ta haddii aada doonto inaad akriso alqur'aana qur'aankii, fastacid billah, ilaahay ka magan gal, min ashayطaani shayطaan ilaahay ka magan gal, alrajiimi ee maaragtay la fogeeyey, naxariista alle subxana wa tacala laga fogeeyey. faidaa qara'ta alqur'aana, yacni qur'aanka markaad doonto inaad akriso wey, aadaabta qur'aanka marka la akrinaayo wey. qofkii raba inuu kitaabka ilaahay akriyo markuu soo weysaysto oo musxaf ka kala furo ha yidhaahdo acuudu billahi min ashayطaani alrajiim, kadib markaas suuraddii yani haday bisin leedahayna bisinka ha akriyo, kadibna markaas meesha ha ka wado. hadduu kala barka suuradda ka akrinayo yani isaga ikhtiyaar acuudu billahi min ashayطaani alrajiim, kadibna aayaddii ay ugu joogtay ama juski meeshuu ka bilaabi lahaa. hadduu bisinka ku darana waa heli karaa, iyaduna way banaan tahay. marka ilaahi subxana wa tacala wuxuu leeyahay faidaa qara'ta alqur'aana, haddaad doonto inaad qur'aanka akriso, fastacid billahi ilaahay ka magan gal, min ashayطaani shayطaan alrajiimi la rajmiyey, la fogeeyey, naxariis alle laga fogeeyey. ay fas'al illaha ilaahay weydiiso an yaxfadaka ilaahay inuu kaa xifdiyo min wasaawisi shayطaani wa khataraatihi, shayطaan waswaaskiisa iyo waxa qalbigaaga uu kusoo ridayo, si aadan u waswaasin markaad kitaabka ilahay ad akrinayso, oo uusan kaaga jeedinin tadabburka iyo sida qur'aanka macnihiisa aad fiirinayso ood ku raaxaysanayso ood macaansanayso uusan kaaga jeedinin.
يكو عمل فلك وحي أتفهمتي سيونا كاغي جيدنين على شيطانك وعدو كتابك مركا تسوق قادته مجع الله هدي كتابك أتسوق قادينا آخرينتي مركا تقول لقاق لهد بو وسواس كوكو بالله بيا مركو كو يعني واحد إلهي كما كنكشا الشيطان كاس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده كدي من القرآن كي آخري وين إنه شيطان كي ليس له وما أهان سلطان أود على الذين كوي كركض وما أهان آمنوا إلهي سبحانه وتعالى الرمي أود ما أركت وكبادييو أما قال لهم أقرده وما أهان وين محايل كواسي إلهي با إلالنا يوي إلهي إلالدي سيكو جيران قفكو إلهي إلالينا عد وحيا لين كرتاي مجلو كواسو هذا وعلى ربهم ربي قودي كركيسي يتوكلون تلصارتي كواس شيطانك أودكو مله دتك إلهي كحرا قلبي قود يعني حسلون يهي توحيد قود وحب بدن يهي دينت إلهي جعل قرآنك كوين يهي عبادة إلهي كوين تهي شيطانك كواسي يعني أود ومله إنه بعديه والدين الآن ودقه وصلاة وكربه ودينتي كخربه ود يعني دباته وصور قال إنه وسواسية وحياة مساس وكلا لكن إنه مارت إغواء كفر إنه كرده أود وملها محايل ذاتك ذات إلهي كتير سوي قفك الله كتير سنة الله دفاعي إنه أرن كوحيه ليس له سلطان شيطانك أود ومهن على الذين كوي آمنوا إلهي رمي وعلى ربهم يتوكلون ربي قودنا ترسارتي إنما سلطانه أود يسوس وحي تهي أود كل الشيطانك على الذين كوي يتولونه السجو ولي كدكتي كوي السجو راعي أو مركزي هجامية كدكتي أو أصع بناية أو وحول بوش راعي كواسو أود كل يهوي يعني صلاة تكنن وأن دينت إلهي معرتي لجنن وأن إلهي حسن كواسو أفضل إنه معرتي وقاطو ملباس وكرده إنما إن كلام سلطانه أود الشيطان على الذين كوي تشهد بأحد يتولونه السجى كولي شيء والذين كوي هم أيجوبا به إلهي مشركون أشريك يلي كو إلهي أشريك يلي أي أودي سؤيحاتي بسبب إغوائه أصبحوا مشركين في عبادتهم إلهي يعني ما أرتي عبادتي إنه وحلو ذا جيان بين نقدين إيه وحي جورا عيان إيه وح والبابا إن إلهي وحلو ذا جيان إلهي غيرك إنه بريان بين نقطي والذين كوا هم أيجوا به يعني ما أرتي إلهي مشركون أشريك يلا ما أرتي كواس أي أود كليه وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر إلهي سبحانه وتعالى حليه وإذا قرتي بدلنا أن بدلنه آية هدان بدلنه مكان آية كالبوس كده أن كبدلنه أو وحاجر نسخ وحلي هذا القرآن نسخ وحوي آية هراء حكم إلهي دتك وشاقي آيات كلا كذب إيمانيسا لوغا فضودينيو حكم كي يعني وحي هراء لو أمري لوغا فضودينيو فضودين تاسي مركا حكم كي آيات دي هراء لقاضي وحالي هذا النسخ بالي هذا القرآن ما بأن ننسخ تلاوتها أو حكمها آيات دي أما أخرين تيدا لنسخي أما حكم كذي بقى لنسخي حكم كفضود بعدتك إلهي أجدي والله فضودي مركو إلهي آيات هراء وصدجي أو أمر لغو فري مؤمنين تا آيات كلا كدبت مادو أو لغو نسخي أو حكم كذي لغو فضودينا كي هراء والله إلهي أعلم وأجيه بما وحي ينزل وصدجنا إلهين وأجي وحد الجنايو قالوا ذي وحرميان إنما إن كلمه أنت محمد أديك مفتر بين لوبات هاي ليه شلي ساسا تري هذا ما أنت مت يعني وحكرة أو كدول آيات وعرلونا سخي بين النبي وحيقول تيرنا إنه بين لو يهاي مرك إلهي سبحانه وتعالى إنما أنت مفتر بكورنا النبي عليه الصلاة والسلام بل اسكبت دافع إلهي وحيري أكثرهم بدن كود لا يعلمون وحب قرن ما ينبغي لله سبحانه وتعالى وإذا بدلنا آية دام بدلنا وإذا أنزلنا آية مكان آية وجعلناها بدلا منها آية كلا كبدلنا بأن ننسخ تلاوتها أو حكمها تلاوتها بحكم كذا إلا نسخه يعني والله إله أعلم وأجيه بما ينزله وصود الجناي برك جملة واعتراضية صوت حق شيء وإذا بدلنا آية مكان آية والله إله أعلم وأجيه بما ينزله وحود الجناي وأجيه أي قالوا وحي أرنيان قال ذي إنما أنت هذه وح كلمته محمد مفتر باطهي
أي كاذب على الله مد إلهي كبين شيء غيبات يورنايان بل أكثرهم بدن كود لا يعلمون وحقرن مايان وجاهلين أن قرنين حكمة إلهي سبحانه وتعالى هذا الكاسب كل واقعا سفها وجهلا سفه جاهل لما درتد عبد الله بن عباس وحيري كان إذا نزلت آية فيها شدة ثم نسخت قال كفار قريش والله ما محمد إلا يسخر من أصحابه يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم غدا عنه وإنه لا يقول ذلك إلا من عند نفسه وعير هذين ما أركتي قال ذي عبد الله بن عباس وحيري مركي إلهي آيات وصود الجيو وحكم كذا أذجعي دبدينا لقف فضذي حكمكي كفارتي قريش وحورنا محمد يعني وحكوجس جس يا أصحاب تيسا ما أنت وحبو أمريا برينا أرن كي كدوم أمريا ما أنت وحبو كريبيا برينا ما أركتي يعني محاها يعني وحوليا وحكلوا أمريا مرك وعي لنا وح وكه الله السجا إلهي حقي كم إيمان مركز إلهي وحيري قل وحاتر هذا نزل قرآن كان وحسود جي نزل واحد جي هو قرآن كي روح القدس أي روح المقدس روح دي طاهرنيت ومن ربك حقي كهذي جبريل وي روح دي طاهرنيت ربك حقي كهذي بالحق استجوا حق كله القرآن كان أي سود جيوي قرآن كان حق الله وحك سود جي روح القدس وهو جبريل قل لهم يا محمد إنما نزله جبريل الأمين أي سود جي قل وحات هذا نزل وحسود جي هو قرآن كي روح القدس يعني روح دي طاهرنيت ومن ربك كسود جي بالحق استجوا حق كله ليثبت إنه السجوا أودد الذين كوا آمنوا إلهي الرميسان إنه معركتي إنه السجوا بما فيه من الحجج والبراهين قرآن كآياته حجوين كيس إبراهيم تا كسبا إلى يدك المؤمنين تسيس سجنا ذان وجهذان إلا كتاب كان إنه حق الله كيمد أرنت سنة يأكل إيمان يقين وهدى استجوا القرآن كان أيها الله سود جيهانون وبشرى بشارة استجوا أبو الله سود جي للمسلمين مسلمين بشارة أيها الله سبحانه وتعالى سود جيوي قرآنكم مرك وهنون وبشارة ومعرفة عاصمات للمسلمين والمؤمنين وبشارة لأهل الإسلام قال سما الدين تيسي يعني الله الدين تيسوي ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر ولقد والله قد نعلم وأن أغنى يقول الله سبحانه وتعالى أنهم قالوا يقولون إن أرنيان إنما إن كلمه يعلم وحبره محمد بشر مد بني آدم أهيا بري قرآن كان ويدي الشيء نم بني آدم وبشر أيا بري بيرادن نم معلم بكسو برتي مرك نم باسو بري ها مركز إلهي حويري لسان الذي متك لغديسي يلحدون إليه أي أولي حينيان إنه نبي بري قرآن يعني أتيرين يان أعجمي ومن العرب عربي أقون واللغة دي عرب أهين وهذا لسان قرآن كان لغة عربية أو مبين أو عضوي عربي لماذا يصير عضهي بكسو الدقي مركو علي إذنكو قال دينا قريش دد أبوانا لديهن فصحاء لديهن بلغات لديهن دد لليابي يعني افتحن نمدو دي بعد لديهن قرآن كلا إماذا لديهن كل جيس واتكري ويدن طبعا سورة لا إماذا لديهن واتكري ويدن هل سورة لا إماذا لديهن واتكري ويدن سام مركز وديه كرتا قرآن كان نين أن عرب أهين أي النبي كسو مير صدا أو معلن أوه أو أسو ميرية وإذن كدي كاس أن عرب تأهين قرآن كان أوسو ميري عجائب تاسله محايد كل عايدين كاب عرب ولا إمام ويسن هذا كوحار كيسا هذا الباطل قيمة له إنه يهي ولقد نعلم إلهي وحول ولقد حقيقة نعلم وأن أغنهي أنهم أيقوا يقولون إني أرنيا إنما إن كلام يعلمه النبي وحا بري قرآن كبشر بابري ند بني آدم بابري نل الهجري جبر الرومي أيا بري بيرادان جبر الرومي نل الهجري أو دتك صنعة أو تمال هايو وحسمين جري أو ما عرفتي نكاس بو مرمر النبي عليه الصلاة والسلام مري جري لفري سنجري بركو حيرادن نكاس تبا بري أو كبرتي ونن كان صنعوا ويه نن هذا لغة عربي أنا ما يقان نن كتاب هوري يقانين معها حجابه كبرة ما عرفتي حديث عربي قاصدة لياب كله يعني يومحوها معجز كا ولغة داس عربي يعني كرتبا وليمد يدينكم حاجة كل ضعي إلهي واردي وحيري لسان الذي إليه يلحدون
midka carabkiisii yulxiduuna ay u nisbaynayaan u leexinayaan ilayhi xaggiis acjamiyun acjami yani waxaa la yihahdaa qofka aan carabta ahayn ee luqadiisu aan carabiga ahayn yaa waxaa la yihahdaa maaragtay yani cajami la yihahda cajami kaas marka yani carabkiisu waa acjami wa hada kana lisaanun carabiyun carabi lisaankiisu wey qur-aankanu carabi muxua luqad carabi oo mubiinun aada u cad oo fasaaxadeedu ay muuqato wey ina aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin biaayaati illaahi aayadaha ilaahay kuwa aan rumaynaynin oo qur-aankan diidan inay rumeeyaan laa yahdiihim allahu kuwaas ilaahay hanuunin maayo xaqana waafajin maayo dariiqa toosana lagu badbaadana marin maayo walahum waxayna leeyihin kuwaasi cadaabun cadaab bay leeyihiin aliimun oo xanuun badan wey ina aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynaynin biaayaati illahi aayaadka ilahay ee qur-aanka laa yahdiihim allah ilaahay kuwaasi hanuunin maayo oo waafajin maayo xaqa walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab aliimun xanuun badan aakhira markii ay tagaan cadaab muujica oo ay ku gubtaan bay leeyihiin inamaa in kalama ee yaftari waxaa ku abuurta inamaa in kalama ee yaftari waxaa abuurta alkadiba been waxaa abuurta aladiina kuwa laa yu'minuuna biaayaati illah ilaahay aayadihiisa kuwa aan rumaynaynin baa beenta abuurta ee nebi moxamed ma aha markaad idinku tirahdeen inamaa anta muftar yacni muftar baa tahay yani nebiga been baad abuurataa ilahay waad ku been abuuratay aada leedihiin ma ahee isaga idinka beenaalayaal ah inamaa yaftari waxaa been inamaa in kalema yaftari waxaa abuurta beenta alkadiba been waxaa abuurta oo yani muxuu ah ku been abuurta ilaahay aladiina kuwii laa yu'minuuna aan rumaynaynin biaayaati illahi aayaadka ilaahay soo dejiyay qur-aanka ah aan rumaynaynin wey kuwaasaa beenlaawiyaal ah oo beenta abuurta wey wa ulaa-ika kuwaasi hum ayagu alkaadibuun waa beenlowyaal kuwaasaa xaqiiqadii beenlowyaal ah wey ee nebi moxamed ma aha ee rasuul allah ah alamiin ah asaadiqa ma aha isaga inuu been sheegayo ee beenta waxaa sheega waa kuwa aan aayaadka ilaahi subxana wa tacala aan rumaysnayn man kafara billaahi man mid baa been sheega dheh kafara kufriyey billaahi ilaahay ku kufriyey halkaa ku cadar man mid baa been sheega dheh kafara kufriyey billaahi ilaahay ku kufriyey min bacdi iimaanihi ilaahay markuu rumeeyey kadib haddana alle ku kufriyey ay talafada bikalimati lkufr wartadda can iddiini bacdamaa dakala fiihi markuu diinta soo galay kadib qofka dib uga baxay kaasaa been abuurad lagu yaqaana beenlow ah man qof baa been abuurta kafara ku kufriyey billahi ilahi min bacdi iimaani markuu rumeeyey kadib ilaa man mid mooyaane ukriha la maquuriyey ama la khasbay yacni wa qalbuhu walxaal qalbuhu qalbigiisana mutma-inun uu ku sugan yahay biliimaani iimaan uu ku sugan yahay qof intii la dhibaateeyey isagoo qalbigana muslim ka ah iimaankana qalbiga uga jiro la yidhi kalimatulkufri ku hadal haddii kale madaxa waa ku tooganayna ama waa ku dilaynaa oo markaasi kalimatulkufri ku hadlay kelimad gaalnimo ah ku hadlay isagoo qalbigana aan ka rumaysnayn naftiisa inuu ku badbaadiyay darteed u yidhi kaa maahine ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma-inun biliimaan walaakin lagu noqeeya man sharaxa qofkii u fidiya bilkufri gaalnimada sadran laabtiisa u fidiya oo laabtiisi ay aqbasho gaalnimadu fa calayhim kuwaasi korkoodi waxa ahaaday qadabun caro min allahi ilaahay xaggii ka ahaatay walahum waxayna leeyihiin cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabkaasoo cadiimun weynin badan bay leeyihiin walahum cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabkaasoo cadiimun oo weynin badan fa calayhim gadabun min allah walahum cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabkaasoo cadiimun aayaddan marka man ukriha billah yacni waxay mufasiriintu leeyihiin naزlat fi camaar bni yaasir akhadahu lmushrikuun facadabuuhu xata acطaahum ma araaduu mukraha faqala الnaas ina camaaran kafar faqala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam ina camaaran maliء iimaana min farqihi ilى qadamihi واkhtalط اliimaanu bilaxmihi wa damihi faataa camaar rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam wahuwa yabki faqala lahu rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam kayfa tajidu qalbak qaala muطma'ina biliimaan qaala in caaduu facud yani mufasiriintu waxay leeyihin aayaddan waxay kusoo degtay camaar ibnu yaasir
reer yaasir waad garanaysaan yani nebigu uu soo maray iyagoo la ciqaabayo aabihii Sumaya yani haweeneydaas waa shahiidadii ugu horeysay islaamka ilaahay dartii loo dilo haweentaas Sumaya oo yaasir xaaskiisii Camaarna wiilkoodii buu ahaa lagu ciqaabay iyagoo dhan ilaahay dartii loo ciqaabay marka Camaar ba aad loo ciqaabay oo gaaladii ay ciqaabtay oo kelimad gaalnimo ah ku hadal bay yiraahdii kala waan ciqaabtan kugu wadayna markaasoo kelimadii gaalnimada ku hadlay isagoo aad u dhibsanayo qalbigiisna uu xanuunayo markaasaa warkii dadka soo gaaray markaasaa la yidhi Camaar waa gaaloobay kelimad gaalnimo uu ku hadlay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi Camaar muuna gaaloobin iimaankana wuxuu ka buuxaa madaxiisa ilaa gumadiisi iimaan baa ka buuxa dhiiggiisa iyo dhiig muxuu ahay hilbihiisana iimaanka galay iimaan markuu u yimid isagoo ilmeynaya Camaar oo aad u qalbi jabsan bayuu ku yidhi saasaan sameeyaa rasuulallah markaasuu yidhi sideed adiga qalbigaaga ka dareemaysaa markaasuu yidhi iimaan baa ka buuxa qalbigay markaasuu yidhi in caaduu facud mar labaad hadday sidaa kugu yidhahdaan adigana ku dheh sidii ay dheh ku yidhahdaan dheh maadaama qalbigaaga uu sugan yahay taasu marka waxa weeye haddii qofku kufriga lagu ku hadal la yidhahdo dii kale waa lagu dilayaa oo qalbigiisuna iimaanka uu ku sugan yahay uu ku hadlo kelimadaasi ku gaaloobi maayo ma aragtay laakiin hadduu sabro oo uu u dhintana haddii shahaado uu shahiid buu noqonaya hadduu u dhinto uu ku sabrana shahiid buu noqonaya laakiin hadduu ku badbaadiyo naftiisa yani ku gaaloobi maayo arrintaas oo la oran maayo qofkaasi waa ku gaaloobay man kafara billah midba yani been abuurta kafara billah ilaahay ku kufriyey min bacdi iimaanihi markuu rumeeyey kadib ilaa man ukriha qofkii la khasbay mooyaane وقلبه والحال قلبه مطمئن بالإيمان إيمان وكسغيان ولكن يقول له من شرح قفكي في ذي بالكفر قال لما صدرا لابتي سؤف ذي فعليهم غضب من الله كواسي عراء كركو ذات ولهم عذاب بإله عظيم أوين ذلك عذاب كاسي أي ليهين وحيكمتين استحب أنهم بسبب أنهم إنيهين درتين استحبوا الحياة الدنيا نرش الدنيا إني كدورتين على الآخرة آخرين كدورتين الدنيا إني آخرة كجعلادين بيكمتين وأن الله إلهنا لا يهدي إنو سنهنونين القوم قول الكافرين قال إنو سنهنونين ما عرتي وأن الله أن الله إلهي لا يهدي إنو نهنونين القوم قول الكافرين قال ولا يوفقهم إلى الإيمان ولا يعصمهم من الزيغ والضلال إنو سنكبت بعدين بعد النمو يعني عذاب خاص وحكمتين إني الدنيا كجعلادين إي آخره إني كفرك كجعلادين إيمانك سيدا درتد وأن الله إلهي لا يهدي إنو سنهنونين القوم قول الكافرون قال أولئك كواس الذين وكوا طبع الله إلهي ودبولي على قلوبهم قلوب تودو دبولي وسمعهم مقل كودو دبولي وأبصارهم أرق كودو دبولي يعني عقل كودو حق فهم مايو إنه حق أرك مايان دقوه حق مغل مايان وأولئك كواس هم أيقو الغافلون وكوا جهاي الصعدان أين قرنين غافل قف مهسوي ووحبا أن أجين اسك صعده غافل ساسا ليرادا قفك عن قرنين ماشي الصعدين ماشي كي مد واحد هوريالي يعني مهسن ومارته غفلته أولئك كواس هم أي الغافلون وكوا غافلون أي الكاملون في الغفلة إذ أغفلتهم الدنيا عن تدبر العواقب الدنيا ذا إن يعني إن سرعة سيو آخر ذي إن في ريامبا إن ذي كدبوشي مرك إلهي وحير أولئك كواس الذين وكوا طبع الله إلهي ودبولي على قلوبهم قلوب تدو دبولي وسمعهم مقل كودو دبولي وأبصارهم أرق كودو دبولي قلبي كودو حق فهم ماي إنه ذي حق أرك مايان لكودو حق مغل مايان وأولئك كواسهم أيها الغافلون كوا غافلين ومهسوي كم مهسن حق أغانشيس إقراشيسا لا جرم وح حقيقة وطبع أنهم كواسي في الآخرة آخرة نحدد هم أيها إليه الخاسرون كو تعب كودي بأي كوا خساري وهوغي إليهين وعذاب كل ماضي وكوهوغي كبابا إليهين أي طبع لا جرم أي حقا وحطبا أنهم أيها في الآخرة آخرة نحدد هم أيها الخاسرون كوا خساري وعمر قودي خساري والدنيا ذا وح نعفي وجوجن على الأركن وهو كل أي عذاب إليه مطلبا والله سبحانه وتعالى أعلم.